هذه mahadsanyihiin dhamaan dadka ka soo qayb galay kulankan gaar ahaan waxaan u mahad celin mudanaha isku dayay inuu isu kaana keeno fakarkiisa nala wadaago qoraal u bedelo aad iyo aad u mahadsanyahay waxaan rabaa inaan saddex shay idin la wadaago sababta buug loo qoro inaan idin la wadaago waxaan rabaa inaan idin la wadaago hadduu qof cadaana buug qoro iyo hadduu qof madow ah buug qoro farqiga u dhaxeeya waxaan rabaa inaan idin la wadaago buugga qofka qoray hanti oo asaga leeyahay inay tahay Soomaaliya sharci difaacaya lama arko haddii la rabo bari buuggaas cidii rabtaa isticmaale iyadoo fasax laga qaadan cidii qortay waan boogsiin cid kasta oo wax qorta waxay maskaxda ku haystaa inuu akhristuhu ku istiraho waxna ka faa'iido buugga uu qoray in wax lagu fahmo xog lagu la wadaago xaalad jirta la faahfaahiyo taariikh hore iyo mid socoto la soo gudbiyo aqoonta fakarka iyo maskaxda ibn aadmiga in kor loo qaado ayaa asal u ah ibn aadmiga inuu isku dayo horta inuu buug qoro waxaan rabaa inaan idin sheego maanta waxaa qoray buuggan hor yaalla ninka dhalinyarada ah Maxamed buugaagta la mid ah ee yaalla maanta buugshoobyada ku yaalla Yurub iyo Mareykanka baa waxaan rabaa inaan tusaale gaaban idinka siiyo buug hadda ka hor waxaa jira habeen 3 saac baa waxaa la sheegay inuu soo baxayo bari subax buugaas subaxdii 4 saac ayaan waxaan tagay buug stoorkii iibinayay buugga 3 milyan oo koobi waxa ay dhamaadeen subaxdii 3 saac aniga waxaan soo noqday aanan buugga haysan sababtaas waaye sababta qofka Soomaaliga ah ku kalifaysa inuu inta meel fadhiisto wax qoro cid iibsanaysa haba yaraatee ma jirto dhibaato weyn baan laga kulmi qofka marka wax qoro tusaale cad waxa ah hadda film sameeyay filmku wuxuu kamid yahay artist ama qoraalku kamid yahay filmaanta qaar waxay socdaan 5 sano 5 sano kadib waxa laga faa'iidaa 3 bilyan 600 oo milyan iyo 400 oo kun oo dollar halkii film ee asubis qofka Soomaaliga ah ee film suubiya waa kuwana waan hor joogan dadka ku takhasusay sida loo sameeyo ama wax loo duubo haba yaraatee wax faa'iido ah oo hadaa wax duubto film sameeyo Soomaaliya ka helayso haba yaraatee lama arko waxaan rabaa inaan barbar dhigo qorida Soomaalidu waxay dhahan wax ma qorno laakiin waxaan akhrinaa ama waxaan dhageysanaa bal waxaan rabaa waxaan dhageysano inaan idin sheego haba yaraatee inaan wax lacag laga helin maxay tahay Soomaaliya dadka wax curiya ee waxa la dhageysta curiya ee gabayada iyo heesuhu ay kamid yihiin Xasan Ganay Sangub iyo Axmed Naaji waa saddexda ugu aansan heesuhoodii maanta lacag la'aan lagu dhageystaa $5 kama faa'iidaan ayaga sidaa darteed wax dhiiri gelinaya inaan inta meel fadhiisato wax qorto kuma jiro dhaqanka dhaqaalaha iyo culture-ka Soomaaliya waana wax yaab leh hal nin oo Soomaaliya ayaa wax uu qora ka faa'iida ninkaas waxa la yiraahdaa Nuuraddiin Faaraxna af Soomaali waxba kuma qoro wuxuu ku qoraa af ajnabi ah wuxuu suuq geystaa adduunyada waana uu ka faa'iidaa lacag fara badan mar wax laga weydiiyo war Nuuraddiin ma hal mar isku dayo inaan Soomaali ku qorto wuxuu yiri yaa iga gadanaya sida darteed Maxamed waxaan ugu bishaareyn 25 buugaan ka gadana maanta hal buug hadii caawa halka looga tago buug dambe qof isku dayaysa lama arko waayo waxaan ku fadhinaa 400 oo qof buugagta meesha taalna 300 waa ka yar yihiin sida darteed waa in aan hal buug halkan looga tagin hadii la rabo qofka Soomaaliga ah inuu habeenkii soo jeedo oo uu buugaag qoro waxa dhacday marka qatana inaan nahay professorkii waa kacay qatana inaan nahay ayaa aad iyo aad loo sheegay waxaan rabaa dhalinyarada soo kacaysa inaan u tilmaamo sababta ay Soomaaliya qatana u tahay hadaa rabto inaad baratid 3 buug baad akhrinaysaa 3 buug hadaa akhrisid oo afahmi weysid sababta ay Soomaaliya qatana u tahay maskaxdaada shaqadeeda culays baa saaran waxa akhrisaa buugga la yiraahdo The Hidden Agenda
The Hidden Agenda waxaa la qoray 1997 ilaa iyo maanta uu valid yahay ciddii akhridaa waxay fahmi doontaa Soomaaliya iyo adduunyada qaarkeed sababta ay qatana u tahay waxa akhridaa buugga la yiraahdo Black Water akhri waxa fahmi doontaa qarnigan hadda lagu jiro oo 80 sano uu ka dhiman yahay waxa adduunyada sugayso ayaad fahmi doontaa hadda akhriso buugga la yiraahdo Black Water kan u dambeeya nasiibuna Soomaaliya ku qoran yahay oo kugula talin waxaad akhrisaa halkan waxa fadhiya istaaga 15 qof oo akhriday ayaa fadhida halkan waxa la yiraahdaa la dagaalanka nuurka akhri buugga la yiraahdo la dagaalanka nuurka hadaa rabto inaad fahanto Soomaaliya sababta ay u tahay wadan qatan hadana qeyraad leh aad iyo aad u mahadsantii